ilmaha meelaha aan ugu shidayno maxaa la dhahaa kartoonnada aan ugu shidayno tom am jerry ama kale waxyaalahaas aan u shidayno iyo miini maarki maa la dhahaa maqan loo shidaay waxaa kartoonno waxaa ku jiraan oo islaami ah oo su'aalooyin la isku weydiinayo oo su'aalooyinka looga jawaabayo ayaa ku jiraan kuwaasaan isticmaali karnaa maxaa noo diidaya inaan isticmaalo marka adiga waxaa rabtaa cunugaaga haddii hadda aadan tarbiyeynin berri qiyaamo haddaad dhimatid makuu soo ducaynaa waxaad ka baxaysaa xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam ahaa idaa maata ibna aadam inqadaca camaluhu ilaa min halaaث bini aadanka haddii uu qofka hadduu dhinto camalkiisa waa go'a laakiin 3 camal aanan go'aynin sadaqatun jaariya wa cilmun yuntafacu bihi wa waladun saalixun yadcuu lahu marka sadaqa jaariya waa baxsan kartaa xaqiiqa masaajidaa dhisi kartaa laakiin cunugaaga masaajid ma dhisay adabaa dhisi kartaa laakiin cunugaaga masaajid ma dhisay ogaada haddii hadda aadan ku dadaalina oo hadda gacanta garbaha la iska qabsina haddaan is walaashanno oo tarbiyada ilmaha meel walba ay jiraan can jaanib walba aan ka dhisno markaas waa laga yaabaa in ay masaajid ay dhisaan in ay sadaqo bixiyaan waxaan sheeko ku maqlay cunug yaroo markaas ilmaha soo baxeen ah in la yidhi lacag uu soo shaqeeyey abtigaa u dir intee u diraa soomaaliya maxaa u diraa uu yidhi abtigaa waa u dir ma shaqaysto uu yidhi waxaa annagaa iska leh heerkaasaa la taagan yahay marka ilmahayna aan ku tarbiyeyno si markaan dhimanno adduunkan la joogi maayo marka aan dhimanno in ay noo soo duceeyaan waxaa baxayso yacni sadaqa jaariya waa baxsatay cilmun yuntafacu bihi inta maba ku haynabo mashaa'ikhdan maahane dadkeenaan kale maba haynabo laakiin cilmun yuntafacu bihi waxaa noo naqanaya in ilmaha qur'aanka aan barno macallimiinta qur'aanka aan barno ay baraan tarbiyada islaamiga ay baraan sabuurad haddii la keeno haddii video ahaan loogu daaro haddii muxaadaro ahaan loogu sheekeeyo ilmaha nidaamka loola dhaqmana insha allah waa sheegi doonaa maxaa jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum asamca waalabsaara waalaf'ida waxaa loo hormarsiiyey samciga waxaa loo hormarsiiyey mar walbaba aa arid qur'aanka aad daratid samcigaa horeeya in allaha samiicun basiirun in allaha basiirun caliim ma arkaysa basiirun samiicun ma arkaysa laakiin in allaha samiicun basiirun waa arkaysaa ilaahay wuxuu idinka soo bixiyey caloosha hooyadiina idinkoo waxba aadan ogeynina muxuu idin yeelay wajacala lakum asamca waalabsaara waalafida marka maqalka ilmaha in la dhegaysto isku daya macallimiinta iskuulaadka dhigaan ilmaha way dhegaystaan marka hore cunug wax inuu sheego rabaa 6 sano jiraa 7 sano jiraa inuu wax sheego rabaa xataa baabuur laba baabuur isku dhacda baabuur xagga maraayo ama nin baaskila inuu ku sheego rabaa naga fariis hadaa dhahay dibkeeda leh aab maxaa soo aragtay hooy maxaa soo aragtay maanta iskuulka warayso markaa wareysatid adina ba dhow ku dhageysanaa marka dadka qaarkooda u fiirsada xataa markii oo meel laga qudbaynaayo ama masaajid ay tahay yacni waxaa kala gedisan dadka hay-aadkooda iyo nidaamkooda waa kala gedisan yihiin tarbiyada culamaa u tarbiya waxay tidhaahdaa ardada qaarna waxay wax ku bartaan jamaaci qaarna waxay ku bartaan fardi markii cilmu nafsiga xaggiisa loo kaco cunug idinka naftikiina waa arkaysiin marka cunug kitaab akhriya ama buug inuu akhriyo oo rabo haddii qajaf ay yeerto cule naga aamusno uu leeyahay meel wuxuu rabaa huduu ah meel degan uu rabaa inuu wax ku akhristo koona wuxuu wax ku bartaabo macnaha jamaaco ku barta saan waaye buuqan oo ku bartaa ilmaha hadda guruub ayaa loo sameeyaa tacliimka casriga waxaa loo sameeyaa guruub si ay wax ugu bartaan kii la arko inuu aamusan yahay waxay dhahaan naftirkooda qaarkood waxay dhahaan iskool isbishaala un diraynaa meelahaas un diraynaa
waxaa laga yaabaa kaas loo diraayo inuu kanka cilmi badan yahay laga yaabaa marka ilmaha mar walba aan isku dayno in aan dhagaysano markaad dhagaysatid inaad dhagaysanayso oo ku arko oo aad ixtiraamaysid asna waa ku dhagaysanaa waayahay imaamu Ghazali kitaabkii cilmu nafsigiisa oo qoray ayaa waxaa ka mid ahaa annagana waa isticmaalnaa laakiin taas ma isticmaalno waxaa fiican inaan cilmu nafsigaas aan isticmaalno ilmaheen annaga waxaan leenahay markuu been sheego waryaa ka tag waryaa been loo yaho ama beenaa sheegaysaa laakiin imaamu Ghazali wuxuu ku leeyahay afkaaga ka dhowr macnaha beentaba ka dhowr laa takdab hadihin waxaa dhahdaa kun saadiqan run low ahaw ama waxaa leedahay haddii kale haddoo been oo sheegay adiga run ma sheegaysid macnaha beenaa sheegaysaa hadihin maxaa leedahay adiga run ma sheegaysid marka maxaa ka soo horjeedo beenaa sheegaysaa leewahay laakiin beentaaba afka laga dhowraabo cunugaas beentaas macnaa afkaaba laga dhowraabo waa culamaa u nafsi sida ay qabto marka sidaa daraaddeeda owlaadayna aan kula dadaalno sidii macnaha oo annaga berito ay u noqdaan jiilkii annagana bedeli lahaa oo rijaalul ghadi ay u noqdaan oo dad ad adag oo diintooda ku ad adag ay u noqdaan aana u muujinno xubbi ilmaha aan u muujinno inaan jecelnahay aan u muujinno haddii cunugaada inaad jeceshahay oo kaa waayo hooyadina uu ka waayo aabbihina uu ka waayo dhibkeeday leedahay markii canaantiyaa ku badatay rasuulkeen sala allahu calayhi wasalam abi hurayra wuxuu ka wariyey rasuulkaa wuxuu soo qabtay wiilgii xasan bin cali sayidina xasan ibnu cali ayuu soo qabtay markaasuu dhunkaday marka nin saxaabi ahaa oo أقرع ابن يابس لها أقرع ابن حابس أيا وحويري إن لي 10 ولد إن لي 10 من الولد ليه طبعا عنقان له يري ما قبلت منهم أحدا ولقينا مدن كوني متكم إذا مدن كوني يري طبعا عنقوا ليه فيري حبيب كيننا وحو soo qabtay xasan bin cali asoo dhunkaday asna meesha u taagnay markaas wuxuu yiri 10 cunugaan leeyahay wiligayna ma dhunkanno yiri mid kamida fa nadara ila rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waa fiiri markaas wuxuu yiri man la yarham la yurham ninkaan naxariisanin loo ma naxariisto wa fi riwaayatin aakhar oo Aisha laga wariyay ayaa waxay tiri قدم الناس من الأعراب dad oo herbadiya nabiga soo galeen markaas waxay yiraahdeen faqaalu waxay yiraahdeen atuqabbaluna sibyaanakum idinka nabiga la weydiinayaan caruurtiina ma dhunkootiin markaas rasuulku wuxuu yiri nacam waa dhunkoona qaalu waxay dhaheen markaas laakinna wallahi ma nuqabbil laakiin anaga ma dhunkoona yirin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركز بحيري أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة هدي إذنك قلبك إلهي الرحمة أو كسيم أنا سمعنا يعني عنق لدم كونا الرحمة دواي عنق مركز صباح إسكولك أو دريست أما معناها إسكولك أجيست أوفير صدق المهض وأجل بجب صدق لابد أن يكون كونا كليتي وسمعنا يعني أنا كانوا حنا ورا بحور يا واد هذا صع أرد الله أرضه بقول عنه لكن هذا معلمين حتى وحي سمايان أنا سكولة معلم كهاجري يعني إسلامي أوس معلمين تمركز دكس سكول عنقلنا لا ما لنا 10 عنك بحجر أو ديني عنك بحجر أوس أو كيالا بعد ما كان يمين جلبها عنق دلك وديها ولا زكابنا أسرع محنا وحال سكابديها سجين مركز حال سفيع المهردي حال محا عنطي الأولى محاوس ميجا أشهر لها لو هذا مع الموضوع رس ما يمين ممكن جعلينه يله هذا الجواب ما أنا كده مرك محليه ما يجعلني ما يمين أوكي هذا يجعلن أنا أبو جعل أنا جوا فصل فوق له لو بيرس أحبرك بعد مرك ده مصاب هاي I love you lewa waa ku jecel ikaw fayaw uu leeyahay marka ilmihii asaasna looga jeedina annagana
عنان قيلو مقعيسان كون المها هدوء هلو سميو مقعيسي إن أي أيجان صريح تود أي جوجلدان تربية الجوري كبلاوة هيسا هايو ينكا خاصة المها إن أي حجيان أبياشنا المها هتوسيان الرحمة هتوسيان قصة أشلمات عن آخرين أيا وحي هذي نن أيا وحو صوب على حاسكي سصوشقة وقتي أو كسب بحجر كهرك صباح اتصل زوجته ناكتي صوب على المركة وحو شيء جاي إن أو ما تشغل أيو كسب بحي أو معناها قري أيو أو إيمانه وهي هي المسوس عتها وهي إمام إيجارك ومغلو يا مركة ويل كم مثل مركز روحي أباها وكسلام هي أصلا التلفون كان محرن أنتوا أصلا حرن هورت وحي شاك وبالله إذا محرن عنق شاك بالعبا أباه ما يجعلوا يري أباه وكو جعل يا ما شاء الله صانو هدو بيرو إيو سلانو يري حدن واسوس عيا وإمانا مركز وحو يري ما يري وحو يري ويل كدرس كينا سيرة النبي قالوا لما يري كتاب سيرة عيالك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال الله وتلقى والله دمي أنا كان وحوري لو بيجو إيجا أخري بس مركو يماد واداليها أنت وأنا سريتي سكرة عم كفيجي سعى واسحنا هذا هو أديك سنة مرك عندي هي سبيا كي يمدين وكلا جيري ماشي أبوغات سيرة النبي لوجا لا يبتكي لابو بوكلا وصاق جدي غوري وصاق المرك مركو غوري وصاق لي عنق يوعي هبو سيس كان عم وصاق دويري markaas oo wada qolka oo yarka uu degan yahay sariirtiisa oo la seexday akhris oo gal marka habartii aad timid waxay tiri macnaa qadada diyaar waay sugu yiri cunuga marka uu qisada u akhrinayay waa la dhameeyay cunug waa ku kor hurday marka waa sugay marka uu dhameystay cunuga hurdada xoogaa oo seexday هاسي ترتيب أو صحيح واسك قضية عنق وحوسوق جاي أسوأ فرحسن هبنا عنق أسوأ جاي أسوأ عبنا هاي أسوأ ده كرك وسوء بودي إيه ولا مكسوء بودي جرين الماء تشويق هلا سمايو حبك هلا موجيو هلا شكايو وحأكتهين وقتي ظهر أنا صومالي عن جون مكسوء جاري هو يمكن مركي الماء أي ماورين أيان أتقاد وكردان حتى عنق ير مركو أمش كجرو سمعي أرجع سيابدن سمعي سيابدن مسوق أركي كريم عندها حتى كالفوري كريم مركي ما عملت الحوار بعد دقائق حتى علماء وعلم النفس وحي شيئا عنق مركو علاش كجرو تربية وحي كبلانس عنق مركو علاش كجرو ما هاجر عنق وحاسينسو وحلي هذا مشيمة لا ده هاي حندرتي اسكو حرن وحيالها أدجايان عرفته ضلع كل واو عرفه يعني عنق waxay sheegaan culamaadu nafsiga in ay fiican tahay qofta markay xaamile ay tahay in ay socoto dabaashana waa fiican tahay haday tarbiyadaas meeshaas ayay ka soo bilaabanaysaa haddana meeshan ku soo koobi karno waqtigana alwaqtu yudaahimuna aad ayaa ugu dheeraaday culamo badan ay macnaha sheegeen أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.